السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا ونكسن داوديال meel walba aad joogtaan iyo si walba aad noo daawanaysaan waxaad ku soo dhawaataan bulsho kobciya media maanta waxaan wareysi la yeelan doonaa gudoomiyaha ururka SIU Sako Union Academic Faisal Maxamed Doble isla markaana ururka gudoomiyaha ururkaasi mudane gudoomiye ku soo dhawo wareysiga toddobaadka runtii eedyada maasanta saaxiibkayga Mukhtaar Liibaan Macalin Master Score runtii waan eedyada hasin dhawa bulsho kobciya media ka dhawo waan jaaniskan isiisan eedyadan ku faraxsana aad oo maasantahay Faisal Maxamed Doble gudoomiyaha ururka SIU waan kaaga mahadcelinayaa inaad maanta ugu casuumay stuudiyaha bulsho kobciya media isla markaana aad soo ajeedto markale waa maasantahay gudoomiye ururkan goormee la asaasay runtii ururka SIU Sako Academic Union waliba la asaasay 25 bilitum ilamaad 2018 waan waliba la ka asaasay caasimada dalka Soomaaliya ee Muqdisho gudoomiye emise xubnood ayuu ka kooban yahay SIU runtii ururka SIU structure shay runtii eedyadaan dhisanya waliba ku koobinaya gudoomiye ku xigeen xogxeentiisa iyo maaliyadda arrimaha bulshada runtii ururku waa urur dhameystiran walkuma qonna mala insha Allah aad oo maasantahay gudoomiye SIU waxaad ka mid tahay ururka dhalinyarada SIU ururkan shaqadiisa maxay tahay runtii ururkan shaqadiisa waliba ata horumarinta dhalinyarada aqoon-yahanada degmada Sako runtii markii la aro academic ururkan waliba dhisanya qof kasta oo wal qoro karo walna akhri karo heer dugsi sare haado dugsi dhexe haado jaamacad haado oo ku tirsan degmada Sako qof kasta oo degmada Sako ku jeedo oo academic ah hadan dhalinyar ah runtii hadhawaayaan ururkan waliba dhisanya dhalinyarada degmada Sako gudoomiye waxaad ka dhawaajisay ururkan inay gali karaan ama ay ka mid noqon karaan dadka wax qori karo waxna akhri karo sida magaca ka muuqato safail qofaanan wax qori karin inuu soo biiri karo sax marka ururkan ma urur furamiya oo qof walba Soomaaliyeed oo wadan Soomaaliyeed joogo ama wadan kale ha joogo oo magaca Soomaaliga oo ururkan soo biiri kara runtii qof kasta adduunkan wal kasta booli leen sharci iyo shuruudo leeyin ururka ba magaasha wali ata Sako runtii hadii biyo Sako ata qofka shuruudiyo oo dastuurka ururka SIU booli ka jara qofku intii isku mid ay intii soo ku jeedo degmada Sako am deegaanada hoos ku intii soo ku jeedo qofkaas laakiin Jubbaland haada kor qofka ama meel kasta Soomaaliya ku haada kor laakiin masta waliba ata qofka SIU ka biiraw intii soo ku jeedo degmada Sako aad ma santahay gudoomiye guud ahaan bahda wareysigan daawanaysa oo dhammaan daawadayaasheen waxaa rabaa inaan xoogaa aad su'aashan ugu faa'iideyso guud ahaan Jubbada Dhexe imise degmo ayay ka kooban tahay runtii Master Score Jubbada Dhexe waliba ku kooban tahay 3 degmo 3 degmo waliba ku mid ah Bu'aale oo magaalo madaxdii iyo Sako iyo Jilib waa marka hadii biyo saasata uu markan waliba dhalinyarada reer Sako waay gobolka hadii oo la qeybiyoon qayb ku mid ah markan uu waay markan urur ahaan maamulka Jubbaland maxaad ka hesheen ma jiraan wax ururka maamulka Jubbaland uu hogaamiyo Axmed Islaan Axmedowe ururkan SIU wax xiriir sharafeed ah ururkan uu sii ma jiraan mayan kamidin ururka aqoonyahanada degmada Sako sida runtii Axmed Madowe Jubbaland uu ku hayna male sababtoo Axmed Madowe xaduud shay waliba buulo gaduud waa nambuulo gaduud kulay reer Kismaayo ka sayanka ale reer Jubbaland nambuulo gaduud xaduud shay een dhalinyar reer Sako xaquuq ku weydiisadayaan runtii mahmaayba wali raasay oo raxweynta ku mid ee wali raasay ay abooshay wali reer Bungmin Dubaw usuna min ku fadhi dheer una Jubba Axmed Madowe uma wal siinsiya milihini unoona min fadhiino Axmed Madowe wal ku sugaan milihini waaka
aan kula kaftame Faisal Maxamed Jooble gudoomiyaha ururka SIU tahay maamulka Jubbaland kabeel ahaan markii laga soo tago ururka kabeel ahaan wax matalaad ama kuleeyahay runtii beel ahaan hoblar ordo Soomaali waliba qayb samaase hadda waliba in qaybay 4.5 markii la ku tabo ana Faisal aha waliba kumid aha qoomiyada digil imirfle runtii markii digil imirfle aroon Jubbaland waliba lagu siiyay wal oo leen qaadada kor dadka qaadadiina waa dad runtii qadiyad aan lahayna waliyuleeyin hayna Jubbaland hadii la qaybiyo kala bar digli mirfle dege wala lagu siiyana wal kulay dhalinyar iska dhaaf wal un hadda ka qanacsanna ma Ahmed Madowna hadii uu cadaalad soo biifan geeka dhoble intii isku ismaayo oo intaas ka san isroogi intii isku tabo ku rooro dhoble oo xaaladii sidii aad kulay uu ku warqabna reer Jubbaland ayna dhoble in safaylaan ka saana Ahmed Madow intii isku ismaayo ku roori yaa hada dhoble deginye runtii cadaalad daradii isu meeli jeeti ya taala runtii waliba sugaane Ahmed Madow qoomiyada wal usasiima la wal una meelnin roogo hadda una dad una tirsadahayoon ma jaraan gudoomiye aad oo maasanta Faisal Maxamed Jooble waan ka mahadcelinayaa waraysigan quruxda badan aad maanta siinayso media bulsho kordhiya media maamulka Jubbaland sidaan wada ogsoonahay waa maamulkay ugu muddo dheer Soomaaliya waa madaxweyne ugu muddo dheer maamulka gobolka dalka ka jiro Safayl ma waxaad ku dhaliilaysaa wax qabad la'aanta sanadkan ka jirto mase sida uu xukunku u qabtay wax qabad kama helin beeshina ama guud ahaan bareed Jubbaland maxay isleeyahay runtii Jubbaland hoblar Jubbaland inta tusaale ahaan hadii hoos liin degdegu digil imirfle markilar iyo markila aro runtii Maxamed Suweer oo Ahmed Madow laftiisa ogaadeen hataa ku tab Maxamed Suweer oo Jubbaland meeliyo ku degaan la kasaw runtii waliba siiyay xildhibaan yakleeyin ogaadeen ka la ku tabi waay awlihan oo runtii meeluusi degaw iyo wala dhon kasaan ogaadeen safayleen kase ha ku tab laftiis shileediye wala siiyay shan xildhibaan reer digil imirflan waliba siiyay sagaal xildhibaan asi runtii markaas waliba meelintii cadaalad ku jarn yakin cadaayas Ahmedowna wiligaana ma taageerna mana taageer doon digil imirfle markii laga soo tago Faisal beeshaada gudoomiyaha ururka beeshaada Jubbaland imisa kursi ayaad ku leeyihiin odayaashaada iyo wax garadka beeshaada ma kala hadashay matalaada Jubbaland ay ku leeyihiin inaysan ahayn matalaad idin qalanto runtii walaalkay score Jubbaland un hadwal un nin roogo beelay hadilar digil imirfle ku tab beelay markii Jubbaland waliba ku mid ana dadkan ka badan oo Jubbaland degaw saas eta hadana wal nin roogo oo Ilaahay abuur nabadoonga aan roogna qof oo xildhibaan ee nin roogna wal roogo oo Jubbaland ee geek uu tirsadayna ma leh imisa hadan xogaa wax yar sharaxaad kooban naga siiso degmooyinka ay ka kooban tahay Jubbaland dhexe imisa degmo ayaad ka degantiin beeshaada niyo waliba ku degnaa horta degmada Saako ilaa iyo Jilib ay gobolka Jubbada dhexe hadii bis meelood lingeebi lama meelood ku degnoon aad oo maasan tahay Faisal Maxamed Jooble ahna gudoomiyaha ururka SIU waan ka mahadcelinayaa waraysiga quruxda badan aad nasiisay ugu dambeyn adigoo ka faa'iideysanaya fursadda ay ku siisay media bulsho kordhiya yaad halkan ka salaamaysaa runtii salaan iyo waliba iska darsada faday fariinga iska darsada fadi markoo horta waliba ka hormaray fariinta ka hormaray fariintan waliba aan diray qof kasto digil imirfle oo ha ku jeedo Jubbaland runtii Ahmedow xaalshii argaytan geegu suu bagacan ku gabad tii daraasiinka dheedi Ahmedowna hada gabalshay dhacay wali ka aruuray qof kastamna wali ka nagaday laaray qof ka siin dambe waliba ka nagaday meel isa ku jeedi in dambeeski imbaha Ahmedowna hada dhobley roog horaan aruuri runtii waliba lana san dheena tii hor amal siinka dheen runtii dadaal hada hal soo biyoy taas horta waliba aan dirfaday dadka oo hadda ka jaro
oo sagaalka qof waa damatelay digil imirfle ka jar xildhibaanada maamulka Jubbaland yoon waliba arfaday meelo wal isin kaaytan oo Ilaahay abuuray ma leh dad isin meel in roogtan oo isin ka matelaytan ma jaro runtii tan kale oo salaanteen waliba arfaday waliba inta ku salaamay dhamaan dhalinyarada degmada Saakow iyo waxaan ku mid ururka SAU aqoonyahan degmada Saakow inta ku salaamay runtii kani wuxuu ahaa Faisal Maxamed Doble ahna ururka dhalinyarada ama gudoomiyaha SAU Faisal Maxamed Doble aad oo maasantahay waan kaaga mahadcelinayna waraysiga qurux badan aad siisay bulsho kordhiya media aad oo maasantahay okay insha Allah